بسم الله الرحمن الرحيم. maxaa faa'iido laga helaa mashaakilaadka guurka? marka hore ilaahay mashaakil anaga hayo, laakiin waxaa hubaal ah in haddii lamaanuhu ay si fiican u wajahaan mashaakilaadkoodii inay ka helayaan faa'iidooyin badan. faa'iidooyinkaasoo ay ka mid yihiin sida kalgaceylka lamaanaha oo isku qabaan oo kordhaya kolkay xaliyaan isku dhaca ku yimid. lamaana ka hadlayay isku dhacoodii ayaa waxay dhaheen isku dhacayna badanaa wuxuu ku koobnaa muran ka dhasha isugalad sheegashada, maadaama labadeena aan shaqaynaynay iyo reeraheennii oo na dhahaya midka kale u dhahaya yaan jeebka lagu gashan. laakiin markii aan midaynay dakhligeena iyo markii aan midaynay reeraheena, murankii iyo malaxumadii iyo wixii oo dhan ayaa naga yaraaday. ilaahayna mawaddo ayuu nagu soo dejiyey. faa'iidada labaad ay lamaanuhu ka helayaan waxaa ka mid ah dabeecadda lamaanaha oo kobcaya. markay si fiican u wajahaan isku dhacoodii, halyeygii Gandhi ayaa waxaa laga hayaa inuu yiri in waddan lagu xoreyn karo qori la'aan waxaan ka bartay yiri guurkayga, ma u dhihin jaamacaddan ka bartay. sidoo kale dabeecadda waa sida muruqa oo kale. muruqa haddii mar walba culeys uu qaado, muruqi wuu xoogaabayaa, xoog uu yeelanaa. dabeecadda aadanahana waa sidaasoo kale. nolosha guurkana waxay u tahay exercise dabeecadda, marka dabeecaddaada ay kordhinaysaa insha allahu tacaala. sidoo kale faa'iidada saddexaad aa ka helaysid waxa waaye waxaa baranaysaa dabeecadaha dadka kale. soomaalida waxay macnaa tiraa tol waa hal la khalay, yacni tolkaagii markii uu arooska jiro mid walba wuu cayaarayaa, wuu heesayaa, waa mashxaradeynaa. laakiin markuu dhib ka dhaco ayaa waxaa ogaanaysaa qof walba wuxuu galo iyo wuxuu godo. waxaa arkaysaa reerka xaaskaagii dadkoodii kuwa fiican iyo kuwa kale waa kala ogaanaysaa. reerkaagii ayaa ogaanaysaa kuwa fiican iyo kuwa kale. mararka qaarkood kii kugu dhawaa ayaaba raba inuu reerkaaga dumiyo, marka dadkiyaa ku kala barane waana ka taxadaraysaa hadduu ilaah yiraahdo. faa'iidada kale oo afaraad waxa waaye nafsadaadii ayaa ku baranaysaa. nabiga allahumma salli wasallam calayhi wuxuu yiri man carafa nafsahu carafa allah. qofka nafsadiisa aqoonsado ilaahayna wuu aqoonsanayaa. nolosha guurka waxay ku baraysaa nafsadaada dhabta ah, miraayada dhabta ah isku fiirinaysaa. maxaa yeelay inta aanan guursan masawir waxaa iska qabtay nafsadaada oo mala awaal ah, laakiin marka nolosha guurka oo dhabta ah aragto waxaa arkaysaa siyaabo oo u dhaqmaysid oo aan iska filanaynin. taas darteed ayaa nafsadaadii ku baranaysaa, nafsadaadana waa xakameynaysaa. taasna waxay kuu suuragelinaysaa inaa hanuunto insha allahu tacaala. waxaan jeclahay inaa ka faa'iidaysateen. waa walaalkiin Baazi Basuri, TV caalamiga ah Universal. baaraka allahu fiikum.